الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسو دوادا قضبضا ورارك جالكينا دايني لتيفي قدور كورون waxaana ka mid noqonaya farmaajo oo ka qayb galay furitaanka shirka iskaashiga Ruushka iyo Afrika Jubbaland oo xirtay iskuulo ku yaala magaalada Kismaayo wasiir Beyle oo maxkamad ugu hanjabay dadka sheega musuqa saraakiil ka tirsan ciidamada Somaliland oo shil ku geeriyooday taliska booliiska Dhuusamareeb oo ku dhawaaqay howlgal amni Soomaali ku xaniban gudaha Liibiya qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha galmudug oo dugniin soo saaray madaxweynaha koonfur galbeed oo magacaabis sameeyay maxaa looga hadlay kulankii aqalka sare ee Soomaaliya madaxtooyada Somaliland oo ka jawaabtay eedeyn loo soo jeediyay khayra oo qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay iyo midowga Afrika kulamo lagu kala taageerayo guddiga dawladda iyo ahlu sunna ay wada magacaabeen oo Dhuusamareeb ka kala socda akhbaraadka dibadda ee wararkeena ugu door koron waxaana ka mid noqonaya Trump oo amray in cunaqabateynta laga qaado dalka Turkiga dad ku dhintay dibadbaxyo ka dhacay dalka Ethiopia iyo dawladda Shiinaha oo casuuntay wafdi Taliban daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena janalka Daily TV ugu door korona intaan ugu gudbin qodobadaasi oo faahfaahsan marka hore waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo biirtaan janalka subscribe saartaan sidoo kale gambalka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan farmaajo ayaa ka qayb galay furitaanka shirka iskaashiga Ruushka iyo Afrika madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kala qayb galay madaxda kale ee qaaradda Afrika kulanka furitaanka madasha dhaqaalaha ee Ruushka iyo Afrika oo socon doona 23 ilaa 24 bishan shirka oo ay soo qaban qaabisay dawladda Ruushka ayaa waxa ka qayb galaya inta badan wadamada qaaradda Afrika ayaa waxa si wadajir ah u furay madaxweynaha Ruushka iyo dhigiisa dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi ahna gudoomiyaha ururka midowga Afrika wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo shirka faahfaahin ka bixinayay ayaa sheegay in looga hadlay soo bandhigida iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Ruushka iyo Afrika madaxweynayaasha Ruushka iyo Masar ayaa khudbado kala duwan ka jeediyay shirka iyada oo la soo bandhigay heerka uu la egyahay xiriirka ka dhaxeeya dalalka Afrika iyo wadanka Ruushka iyo caqabadaha ku horgudban Jubbaland ayaa xirtay iskuulo ku yaalay magaalada Kismaayo wasaaradda waxbarashada maamulka Jubbaland ayaa waxa ay si ku meel gaar ah u xirtay 2 iskuul oo ku yaala magaalada Kismaayo kuwaas oo ay sheegeen in ay sharciga baalmareen qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in si ku meel gaar ah loo xiray dugsiyada kala ah Xalane iyo Aqoon Bile oo kamid ah iskuulada ku yaala degmada Kismaayo kadib markii ay baalmareen habraaci waxbarashada Jubbaland ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay wasaaradda ugu dambeyn qoraalka oo ku saxiixnaa wasiirka waxbarashada Jubbaland Maxamed Ibraahim Maxamuud ayaa lagu sheegay in laga bilaabo taariikhda 23 shalay ilaa laga gaarayo inta amar dambe oo lagu fasaxayo laga soo saarayo si ku meel gaar ah loo xiray iskuulkaasi wasiir Beyle ayaa maxkamad ugu hanjabay dadka sheega musuqmaasuqa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sanatarada golaha aqalka sare waxa uu ka hor aqriyay hindis sharciyeedka dakhliga guud ee Soomaaliya oo ay soo meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad caadeystay in mar walba ay Soomaaliya ku aydeeyaan in uu ka jiro musuqmaasuq waxa uu tilmaamay in hadda kadib cidii arintaasi sameeysa ay la tiigsanayaan maxkamadda sidoo kale wasiir Beyle ayaa waxa uu gudoonka iyo sanataradaba aqalka sare uu ka dalbaday in ay dedejiyaan aqrinta labaad iyo saddexaad si uu madaxweynaha dhamaadka bishan uu u ansixiyo sharcigan saraakiil ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa shil ku geeriyooday inta la xaqiijiyay ilaa 2 sarkaal oo ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa ku geeriyooday halka 3 kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu la ragmaday gaari ay wateen shilkan ayaa waxa uu ka dhacay duleedka bari ee magaalada Hargeysa waxaana saraakiisha ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay shilkaas ay ka tirsanaayeen ciidamada dabdamiska Somaliland
taliyaha ciidamada dabdamiska Somaliland Axmed Sawaaxili ayaa sheegay in saraakiisha iyo ciidamada shilka ku waxyeeloobay ay ku wajahan yihiin ama ay ku wajahnayeen magaalada Berbera yeeshee musiibadaasi ay qabsatay. Inta badan deegaanada duleedka ka ah magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka dhaca shilalka gaari iyada oo wadooyinka qaar yihiin kuwa burbursan. Taliska booliiska Dhuusamareeb ayaa ku dhawaaqay howlgallo amni. Taliska booliiska magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxa ay soo saareen qorshe lagu sugayo amniga inta ay halkaasi ka socdaan howlaha la xiriira doorashooyinka. Taliyaha booliiska magaalada Dhuusamareeb ahna taliyaha xasilinta Cabdulaahi Xasan Macalin ayaa sheegay in mar walba ay wadaan howlgallo lagu sugayo amniga. Waxa uu sheegay in ammaanka magaalada Dhuusamareeb uu yahay mid la isku halayn karo isla markaana ay kordhinayaan inta ay socdaan doorashooyinka Galmudug. Ugu dambeyn, bulshada ayuu ugu baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga guud ahaaneed ee Dhuusamareeb iyo deegaanada hoostaga. Soomaali ayaa ku xaniban gudaha dalka Liibiya ee wadanka Carbeed balse qaaradda Afrika ka tirsan. Dadkii muhaajiriinta ahaa ee ka badbaaday weerarkii duqeynta ahaa ee bishii Juulaay lagu qaaday xero ay ku sugnaayeen muhaajiriin lagu hayay caasimadda Liibiya ee Tripoli ayaa BBC-da u sheegay in qaramada midoobay aysan dan ka lahayn xaaladooda isla markaasna ay ku dhex go'doonsan yihiin dagaalada ka taagan halkaasi. Waxaana ka mid ah dad Soomaali ah oo ku xayiran gudaha dalkaasi. Weerarkaas waxaa ku dhintay 53 qof oo muhaajiriin ah, waxaana weerarkaasi lagu eedeeyay maleeshiyada isku dayayso in ay qabsato magaalada caasimadda ee Tripoli. Dalalka caalamka ayaa cambaariyay duqeynta lagu beegsaday muhaajiriinta qaramada midoobay waxayna ku tilmaantay dhacdadaasi dembi dagaal. Tan iyo markii ay dagaalada ka bilowdeen duleedka Tripoli 6 bilood ka hor, hay-adaha caafimaadka adduunka waxa ay sheegeen in ugu yaraan 1,000 qof ay dhinteen halka 120,000 qof ay guryahooda ka qaxeen. Weli dadkii ka badbaaday duqeyntaasna waxa ay ku dhex go'doonsan yihiin magaalada caasimadda u ah dalkaasi Liibiya ee Tripoli. Qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug ayaa digniin soo saaray. Laba ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay ka digeen in Galmudug laga abuuro xasilooni darro taasi oo hor istaagi karta geedi socodka la doonayo in lagu dhiso Galmudug midaysan, ayay ku yiraahdeen qoraalka ay soo saareen. Musharaxiinta kale ah Cabdiraxmaan Xuseen Odowa iyo Kamaal Guutaale ayaa waxa ay ugu baaqeen dhinacyada isku haya arrimaha Galmudug. Musharaxiinta Galmudug ayaa ugu baaqay labada dhinac ee dowladda iyo ahlu sunnaba in ay ka shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa Galmudug oo loo dhan yahay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa magacaabis sameeyay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu magacaabay agaasimaha maamuuska madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed. Wareegto ka soo baxday xafiiska Laftagareen ayaa waxaa agaasimaha maamuuska madaxtooyada loogu magacaabay Mawlid Ibraahim Xasan. Maxaa looga hadlay kulankii aqalka sare? Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku yeeshay xarunta aqalka sare kalfadhiga 6aad kulankiisa labaad, iyadoona ajandaha kulanka uu ahaa 1. Akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dakhliga guud ee qaranka iyo ansixinta xubin cusub oo ka mid noqonaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya. Kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdulaahi. Sidoo kalena waxaa goobjoog ka ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Senator Abshir Maxamed Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Senator Mawlid Xuseen Guhaada. Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa golaha ka hor akhriyay akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dakhliga guud ee Soomaaliya. Wasiirka ayaa marka hore si faahfaahsan uga hadlay halka ay marayso hanaanka deen cafinta Soomaaliya, isagoona sheegay deenta Soomaaliya lagu leeyahay inay gaarayso 5 bilyan oo doolarka Mareykanka. Deemahaas oo la qaatay inta u dhaxaysay 1965 ilaa 1988. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Senator Cabdi
xaashi cabdilaahi ayaa ku wareejiyey sharciyaadka dakhliga guud ee Soomaaliya guddiyada maaliyadda aqalka sare si ay uga gutaan waajibaadkooda uga aadan. Ugu dambeyn, guddoomiyaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa dib u dhigay ajandaha labaad ee kulanka isagoona soo xiray kulankan. Madaxtooyada Somaliland ayaa ka jawaabtay eedeyn loo soo jeediyey. Afhayeenka madaxweynaha Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa ka hadlay hadalkii ka soo yeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani, kaas oo salka ku hayay eedo uu u jeediyey madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Afhayeen Maxamuud Warsame Jaamac oo saxaafadda la hadlayay ayaa eedaha uu soo jeediyey guddoomiyaha Wadani ku tilmaamay kuwo aan sal iyo raadba lahayn, isla markaana uu kaga gambanayo xagaldaaca iyo dibin-daabyada uu xisbigaasi ku hayo qabsoomidda doorashooyinka kusoo foolka leh, madaxweynaha iyo xukuumaddiisana ku howlan yihiin qabashada doorashooyinkaasi, ayuu yidhi. Sidoo kale waxa uu ku eedeeyey guddoomiyaha Wadani in uu shuruucda xulista xubnaha komishinka doorashooyinka iska indho-tirayo. Waxa uuna yidhi nuxurka hadalkii guddoomiye Ciro waxa uu ku aadanaa maagis uu guddoomiyuhu maagayo in dalka ay doorasho ka qabsoonto aysanna ka qabsoomin iyo in doorashooyinku ay socdaan. Marka koowaad, sharciga iyo arrimaha doorashada ayuu aad ugu dheeraaday. Doodiisa doorashaduna waxa ay ahayd mid aad u jaban, sababtoo ah xeerka doorashada xeer nambar 20 ilaa 2001 qodobkiisa 13aad waxa uu si cad u qeexayaa shuruudaha iyo wadada loo marayo xulista xubnaha komishinka. Guddoomiyuhuna wuu yaqaanaa, laakiinse wuu iska indho-tirayaa, ayuu yidhi. Toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaanada Somaliland ka taagnaa khilaaf ka dhacay doorashooyinka, kaas oo u dhexeeya xukuumadda Somaliland iyo xisbiyada mucaaradka Somaliland. Khayre ayaa qaabilay wafdi ka socday Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi heerkiisu sareeyay oo ka socday Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika oo booqasho ku tegay Soomaaliya. Ku-xigeenka xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Aamina Mohamed iyo ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha habeenka, nabadda iyo amniga Benita Dibo ayaa hogaaminaysay wafdiga. Kulanka ay wada qaateen ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga ka socday Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika oo ay goobjoog ka ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalk Soomaaliya ayaa looga hadlay dhismaha nabadda, xalinta khilaafaadka iyo sare u qaadidda doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda. Aamina Mohamed iyo Benita ayaa uga mahadceliyey soo dhaweynta uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u sameeyey, waxa ayna bogaadiyeen guulaha muuqda ee lagu tilaabsanayo ee dhanka amniga, dhismaha nabadda, xuquuqul insaanka iyo dhiirigelinta haweenka ee dowladda federaalk Soomaaliya ay gaartay. Kulamo lagu kala taageerayo guddiga dowladda iyo ahlu sunna ayaa dhuusamareeb ka socda. Guddiyada ay kala magacaabeen ee doorashooyinka midba midka kale uu sheegay inuu yahay guddiga doorashada Galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa ka bilowday kulamo kala duwan oo lagu kala taageerayo guddiyada doorashada dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo ururka ahlu sunna ay ku dhawaaqeen. Dadka ku nool magaalada ayaa laba qaybood noqday, qayb taageersan guddiga doorashada Galmudug iyo kuwa taageersan guddiga ay magacaabeen ahlu sunna. Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii shacabka magaalada ay u taageeri lahaayeen guddiga doorashada maamulka Galmudug ee ay magacaawday. Sidoo kale ururka ahlu sunna ayaa dhankooda doonaya inay taageero u helaan guddiga farsamada iyo doorashada maamulka Galmudug. Xaaladda Galmudug ayaa hadda taagan meel adag, waxaana labada dhinac ay isku wadaan laba guddi oo sababi kara in Galmudug ay yeelato laba madaxweyne iyo laba baarlamaan. Daawadayaal, akhbaaraadka dibadda ee warkeena
waxaa ka mid noqonaya inkastoo aan idiin xasuusinay inaad warkaasi kala socotaan Daily TV. Trump ayaa amray in cunaqabateynta laga qaado Turkiga. Madaxweynaha Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu qaadayo dhammaan cunaqabateenadii uu horey u saaray dalka Turkiga. Trump oo shir jiraa'id ku qabtay aqalka cad ayaa go'aan sabab uga dhigay isla markaana amaanay xabad joojinta ka dhaqan gashay xuduudda Syria iyo Turkiga. saakay dowladda Turkigu waxa ay maamulkiiga u sheegtay inay joojinayso dagaalkii iyo howlgalkii waqooyiga Syria isla markaana ay xabad joojinta ka dhigayso mid joogto ah, ayuu yiri Trump. Sidaas darteed waxaan ku amray xogayaha maaliyadda inuu qaado dhammaan cunaqabateenadii Turkiga lagu soo rogay 14 Oktoobar ee jawaabtu ah howlgalka Turkiga ee ka dhanka ahaa Kurdiyiinta waqooyiga bari ee Syria, ayuu yiri madaxweyne Trump. dadku dhintay dibadbaxyada ka dhacay dalka Itoobiya. 3 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhacay Itoobiya halka tiro shacabna ay ku dhaawacmeen sida saraakiisha ciidanka booliiska Itoobiya ay xaqiijiyeen. Dibadbaxyada ayaa looga soo horjeeday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. 2 qof oo kamid ahaa dadkii dibadbaxyada dhigayay magaalada Adama ayaa lagu dilay halka hal qof kalena ku dhintay magaalada bariga ku taala ee Harar sida ay saraakiisha sheegayaan. halka 3 qof oo dibadbaxyaal ahna lagu dhaawacay magaalada Ambo oo dhacdo galbeedka magaalada caasimadda ee Addis Ababa. Waxaa la xiray wadooyinka ku yaala gobolka Oromiya iyo wadooyinka gala Addis Ababa. dadka dibadbaxyada dhigaya waxa ay taageero u muujinayaan Jabar Maxamed oo ku eedeeyay dowladda in ay ilaaladiisa kala noqon rabto. ugu dambeyntiina dowladda Shiinaha ayaa casuuntay wafdi Taliban ah. China ayaa wafuud ka tirsan Taliban u casuuntay inay ka qayb galaan shirka Afghanistan ee ka dhacaya magaalada Beijing sida uu sheegay afhayeen u hadlay kooxdaasi. casuumaadda China ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhex maro Mareykanka iyo Taliban uu burburay bishii tagtay. afhayeenka siyaasadda Taliban Suhaila Shahina ayaa Twitterkiisa ku sheegay in Mullah Abdullah Ghani Badar oo kamid ah aasaasiyaasha kooxda uu diblomaasiyiin Shiinees ah kula kulmay magaalada Doha oo kooxda ay ku leedahay xafiis siyaasadeed. guud ahaan warkeena halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. nabadgelyo daawadayaal.